waxaan rabaa inaan idiin sheego dhalinyaro ciidankeeniyow dalkii hooyo ee aan ka wada nimiday ee aan u dhaaranay dalka dadka iyo diinta waatii aan ku dhaaranay saddexda da maanta duruufihiisa meeshay ku sugan yihiin aad u ogtihiin hawlaad soo qabateen waa u soo dagaalanteen qaarkiina ku dhaawacmay saaxiibo kuwiina ah ku dhintay oo aad jeceshihiin sidaasoo kale dad badan saaxiibo ah ehel ah qaraabo ah waxay galabsadeen aanay jirin ayaa cadowgu dilay qarax meel ka dhacay iyadoo iska socoto qof hooyo iska socoto suuq ka soo adeeganaysa aabba saaka shaqadiisa u soo kalahay wiil intaba waad soo wada marnay kulli hal maalin ayaan intaasoo boqoloo qof aan maxaanku raha ka sabarnay oo aan dhiigooda iyo dhacaankooda meelay ku dhibceen waa cadow naxariis daran oo aad iyo aad u naxariis daran oo diin aanan haba yaraatee lahayn dadnimo Soomaaliyeedna iyo naxariisteedana aanay ku jirin oo midda adiga kugu jirta ee aad dalka iyo dadka aad u turaysa ee naftaada aad u horaysaay isagu aanay ku jirin nagana mid ah oo naga dhashay waaye nimanka la yiraahdo shabaab waa argagixiso Soomaaliyeed ma ahan ee waa argagixiso caalami ah waa niman leh ajando caalami ay leen ajando Soomaaliyeed ma laha adduunyada qaaradaha ay muraad ka leeyihiin laakiin annaga maxay naga dhigteen meeshii ay maxaanku raadaay ay ka doorayeen ka kacayeen deeq gacmeedkooda meeshuu ka kacayay ayaa Soomaaliya noqotay nasiib darrada waxaan rabaa marka inaan idiin sheego nimankaasi magaca diinta ay ku qaraabtaan sababtay ugu qaraabtaan waa maxay waa waxa kaliya ee ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ka midaysan tahay ayaa ah diinta islaamka waa ku midaysanna kuma kala qaybsan reer qurac iyo reer qansax iyo inaan kala nahay waa laga yaabaa laakiin kala muslim maahay meesha dadka dhan oo xagga haday tagaan adiga reer qurac tahay aan laga dhahay oo xagga haday tagaan adiga reer qansax tahay aan laga lahayn oo intay fikireen ay arkeen gabaadka inuu u noqon karo waxay noqotay diinta islaamka diinta islaamka diin nabadeed oo ummadani ay leedahay aanay ku midaysan tahay ahayd waana dhaxgaleen waxaad aragtay sameeyay waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego annaga markaan waxaa naga go'an aniga iyo dowladda aan madaxda ka ah ee dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkana idinku tiirsan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaasi inaan dalka Soomaaliya ka saarno ka baabi'ino ayaa anaga go'aano ah siyaasadkii hore ee 15 sano jiraane 15 sano waqti yar baa dad badan dhalinyaro badan oo adikeeda kamid ah aad ay caruur u ahaayeen 15 sano ka hor maantana dad mas'uuliyiin ah oo u taagan muxuu ahaay dalkii inay daafacaan waa siyaasadii waaya aragnimo wixii aan soo aragnay inaan wax ku darsanno oo aan maxaanku iraahday ka faa'iideysano oo aan ku dhaqanno si aan u jibino cadowgaas aan dalka uga xoreysano waay siyaasadkaasi nooma shaqeynin 15 sano ficilka la qaadayo dagaalka la qaadayo la galayahay wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda dawladda ee cadowga horta ay ka leedahay cadowgan waa maxay siyaasaddan ka rabno meenan dhinac u riixnaan rabnaa meenan soo qabqabanaan rabnaa meenan baabi'inaan rabnaa meenan dhul gaara ka kicino maxaan ka rabnaa cadowga siyaasadka aan hadda ka hor kusoo dhaqmaynay oo dagaalka aan shabaab kula jirnay aasaaska u ahay kow waxaa ka ahay siyaasad la yiraahdo xeer edegayn containment muddo kadib siyaasad kale la keenay la yiraahdo shabaab hoos ha loo dhigo hal awoodiisa hoos ha loo dhigo afka qalaad lagu yiraahdo maxay degrading awoodiisa hal khafiifiyo hoos ha loo dhigo
iyo waxa ay qaban karaan ama ay halayn karaan siyaasad fiican ay ahayd laakiin naguma filnayn shabaabku duul xere ay degan yihiin soo burburi meel ay checkpoint ku leeyihiin ciidamaha loo dira soo galaan kuwa kale maxaa inta dhaqaaqaan xeryo ay degan yihiin ha soo burburiyaan maxaa ka dhashay inay la qabsadaan xeradaana la burburinaa 2 usbuuc ka bacdi xeradii horeba ka daran waa dhisan tahayba waa joogtaa meelaha checkpoint u yeel isbaar u tiilay waa la yimid cagaha lagu kala leef waa laga tagay maalinta dambe isbaaradii inta hore ka xoog badanay ataan meeshii amaba 2 iyo 3 noqotaa taan sidaas daraadeed awoodda shabaab hal la dhimo waxay ka samaysteen difaac awoodooda hal dhimo mugul yaraaba inay si kale awoodda u korsadaan inay la yimaadaan waxay ka samaysteen aqli badan muddadaas 15 sano ah oo siyaasadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinba maalinta ka dambaysa shabaab waa sii xoogaysanayeen baadiyaha ayagoo joogo duurka lagu eriyado iyo ka yimaadeen magaalooyinka yimaadeen maalinta ka dambayso intii hore waa kasii xoog badan yihiin labadaas siyaasadood iyo khibradii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejino dalka u dejino oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadood oo hore ciidan bas ku saleysnaayeen ciidan duulaayo la diriraayo shabaab noocyo kala duwan oo farsamo dagaal isticmaalayo mid daroon wato oo ku duqeynaayo saasay ahayd kuwa helicopter inta lagu qaado meel laga dul dejinaayo dhammaan ciidan ay ahayd taasi marka waxba iskama bedelin way soconay farsamooyin cusub advanced courses adduunyo kale howla la sii galaa way soconay ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa military waa ama ciidamada amniga noocay doonaan ha ahaadeen waa laakiin wax kale ku dareynaa oo aan hore u jirin waxaan ku dareynaa dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagu wakiilkiin oo kuwa diinta saxda sheegayeen inaan dadku u sheegno beenaalayaal waay diin ma aha waxay wadaan shaqo ku mara diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshano narrative-ka ama isloog halayska diinta dadkeena aan ugu sheegayno inaanay diinta ayaga wakiilka ahayn ee wax khaldan ay wakiilka yihiin gacan ku dhiiglayaal inay yihiin arxan laawayaal inay yihiin ajnabi iyo balaayo iyo shisheeye inay u shaqeeyaan maxaa naga galaa nagaal qaacida iyo fikir iyo farcid maxaa naga galay aniga balaayadan ajnabiga iyo la soo daldalayo Soomaaliya inta la kale lagu tababaro balaayada loo adeejinayo maxaa naga galay maxaa naga khusay maxay nagala dhaxay dalka Soomaaliya muslimiinta iskale laakiin muslimiinta iskale waa kuwe muslimiinta Soomaalida aha iskale muslim walba dalkiisu leeyahay cid aan dalka la leenahay ma jirto dalka soo aan tagina nidaam iyo shuruuc dalkaas uu leeyahay aan ku tagnaa dalkan iskama dhan imaan inta diyaar iska soo raacnay iskama imaan shuruuc iyo nidaam iyo heshiisyo ku nimad iyo raali ahaansho dawladdiisa ay raali ka tahay Soomaaliya sidaas oo kale muslimku waa imaan karaa laakiin heshiis iyo raali ahaansho dawladda Soomaaliya iyo magaca shacabka Soomaaliyeed ayay ku imaan karaan nin kastoo dalkeena imaanayo sidaas daraadeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshanaa diinta ay naga xadeen waa naga xadeen waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno fronti saddexaad jiro iyo mid afraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay kan dekada u joogo kan baadiyaha u joogo zakada u aruuriya kan maxaan ku raadaay cashuuraha kala u aruuriya kan ay u bixiyaan muxuu ahay tabarucaadka jihaadka kan u aruuriya waxaasoo dhan kuwa ka shaqeeyaay inaan gacanta ku dhigno tubooyinkaas aan soo xirno waayo
farsamadeeda iyo sida loo waxaynayo istiraatiijiyaadkeeda waa noo yaalaan waa ku dhaqaaqaynaa waa samaynaynaa hadday beesa waayaan ilaan hadda waxay samaan beesadii Soomaaliya ka aruuriyaan dibadda u diraan ka Mozambique ka dagaalamaya ka Nigeria ka dagaalamaya tabarucaadka Soomaaliya laga ururiyo qaarkooda loo geeyaa gaar alqaacidada buuraha duurku jirta lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto kama fakti hore waa ka imaan jirta lacag hadda teenaal loo qaadaa loo geeyaa tubooyinkaas waa soo xirinaa nimanka dagaal dhinac walba ah oo aan leesu turayn yani intaas dagaal oo furanto markaan furno albaabaan meel uga furaynaa albaab ayaa u furaynaa ninkii ka tanasula mabda'a xag jirnimada ee ay aaminsan yihiin caqiidada shabaab ninka ka tanasula inta public dadka Soomaaliya soo istaag yiraa aniga waa ka tanasulay waxaasi waa khaldanaayeen ee ka tanasula inuu dhig Soomaaliya daadiyo waa ka xumahay wixii dhacay iyo wixii aan dib geystay dadka Soomaaliyeed aan cafis weydiisana dhig Soomaaliyeed dambana daadin maayo in la daadiyana ka shaqeyn maayo haduu yiro banaanka soo istaago wiil Soomaaliyeed waa noo soo noqonaa waa naga tirsan yahay waa nala jooga way tababar haduu rabo farsamo haduu rabo ciidanka inuu ku soo biiro haduu rabo يعني نروح عصبة ونرش عصبة دولته أي كساعدين مركز الله بيه وحى الشيء جاي إن نبكيين أو كتنزلي سد حداث فرنتي إيوه الباب كاس محوها كي توصل كي صنعوا دمانتين ودم باودان لكن وحى يكون في عن كو دم كتوبة كان سومهن حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام كلكم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون كو خلدما كو وخير كبدن وكو توبه كان نينك توبه كان او يرا استغفر الله وحي horna la iga cafiyo ilaahayna iga cafiyo oo noqon ma yira wiilkeena waay waxa xaqiijinayna waxa uu noo sheegay inay dhab ka yihiin kadibna wiil Soomaaliyeed oo sharaf loo noo ahaanay mana la duleynaayo mana la dulminaayo mana la takoorayo مشروع سيداس شباب مركز دبه هدي اي شباب اهان عقيدتي بس waa dhamaaday shabaab albaabisa xilina ran ay wada yiraahdaan ahlan sahlan wala la fadhiisana laakiin inta uu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay ee xaq jirnimada leh ee digdaadinta leh ee diinka been sheegida leh oo ummadda Soomaaliyeed dibkeeda leh ee maxaan ku yiraahdaa dhoofinta argagaxa iyo balaayada iyo waxa leh annagu waxaan qaadanay Soomaaliya heshiis ah dhaxdeeda دونيدنا هشيس لا أنا أقول إن هشينان ربنا دونيدنا إن ليه هشينان ربنا كأقرار مين ويلي رو شبابه إنه قرح أنتوا قاضوا أو معانكم هذا الدنيا كلجي قرحيه ما كأقراري وحان ربنا مركز اليرو وحاس عليك عارض ورنكو هدانو عارض في قرن وحكو الدور لهين ميو وحدوري كراه waxba duri kara Soomaa haduu gumaarayo sida yahay maanta oo jug burus waay waran ma buruska meel ku fiican yahay waranka meel ku fiican laakiin waranku waxba dura caarada wax ku dura haduu leeyahay caaradaas fiiqan uu leeyahay ayuu wax ku dura idinka caaradi ah in shabaab la difiid gareeyo oo shabaab la jabiyo la hanjabiyo la qabjabiyo boqolkiiba toddobaatan dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin miyiga xoolaha ay helaan in badan oo kamid waxay ka helaan miyiga dhalinyarada ay qortaan oo maalin walba recruit gareystaan waxay ka helaan in badan oo kamid miyiga ka helaan idinka waay tababarka adag oo dhibka badan iyo culayska iyo nolosha adag waxaad u soo mareyseen waxay ahayd noloshaas adag ee miyiga ka jirta inaad u bareertaan oo buraashada intaad biyo ku shubataan aad ka daba lugaysaan shabaab in shabaab waa lugaya baabayaal ma wato markuu xiri isugu tago meel isugu tago soo duulayo ama xero weyn oo degan yahay qalb kasta waa loo qaadanaya waa la aadaya laakiin midka aan sheegay zakada abuurinayo iyo kan wiilka dugsi quraanka meel ku dhigtay inta u taga maxaan ku raadahay
soo recruit garanaya soo qorayahay waa lugeynayaan laga daba lugay u baahan yihiin buraashad inta biyo looga daba shubto la daba kacay u baahan yihiin intuu jooga la yiraahdo dhalinyaro aad iyo aad ayaad mar kale idin hambalyeynaya idinku mahad celinaya idin bogaadinaya idin sugayna kulli foolka gacanta noo saaran tahay goormay soo noqon doona waxa soo dhan marka guul waxa la yiraahdaa guul sideedaba ninkii holiya hela ninkii isku dayo inuu guuleysto ninkaas un baa guul haddaadan isku dayin inaad marka horeba aad guuleysamaysid laakiin guul ninkii holiya hela horaa loo yiri annaga waxaa naga go'an inaan holino rajada inaan helna aan aadayno weynta inaan guuleysanayna laakiin inaan guuleysano ciidan ahaan hal shardi ay leedahay shardigaas markii la helo ka bacdiya waxa kale qoray la helo rasaas la helo raashin la cuno la helo shidaal oo baabuurka lagu shubto la helo baabuur teknika la helo beeba la helo waxaas la helo ka bacdi iimaanay ka bacdi hal wax oo waxa jiro wax kasto beeba kasta iyo taangi kasta iyo diyaarad kasto haysato halkaas wax haduu ka maqan yahay wiliga guul ma gaaris halkaas waa maxay discipline haddaadan discipline lahayn hubka ugu casrisan ee gaashaanbuurta naataaysta hadii lagu siiyo shabaab haltuuna kama kici kartid why because adiga baa muxuu ahay aan aaba isdirsan oo dhaxdeeda isxagal gaadayo oo iswaxaynaya maxaad cadow iska celisaa Soomaalida qaarkeed waxay ku maamaadaa urkooliya ugaarsada dadku ku ugaaratada xilliyada abaaraha waliba dhibaatooyin badan jira hadda oo kale yaa la ugaarsadaa xilliyada aaranka xooliya caana dhalayo ayaga maxay hilib le waa beeriya baxay badarkiya bakaaran ugaarta baahi looma qabo lama ugaarsado lama aado laakiin xilliyada abaaruhu ay yimaadaan duruufaha adag ay yimaadaan waa ugaara la raasada marka jamaacada suraaca waxa la yiraahdaa marka urkuliya ugaarso maxay dadkaas waxay aaminsan yihiin oo aanay way arwaaqan haddii aanay isku niyad furnayn oo isku calool fayoobeen oo mid col la yahay oo xagal gaadayo oo ugaarta iyo hortaahilinkan ay ku jirto ugaarta hadii la soo helo waa la wada qalanayaa hilbaana waa la wada cunayaa laakiin nima wuxuu qabaa amaad adigu inta soo heshaado aad ama kaliga baad hadu wala baxdaa gooni qalbiga ugu jirtaa waxa la yiraahdaa ugaar lama helayo waxay ku leeyihiin waa fact waa xaqiiqo la soo tijaabiyo ugaar lama soo helayo ama inta dhaawacantay baxsanay ama inta ku dhacday dhimanay baqtinay adoon gaarin marka lama helo marka waxay yiraahdaan marka la ugaarsanay waa la isu yimaadaa waxa la yiraahdaa haye yaa wax isu qaba yaa isqaniinsan yaa wax ka dhaxeeyaan waa la isu sheegaa waa la is cafiyaa maxaan ku yiraahdaa gacanta la is saaraa waa la wada duceystaa markaas kadib la baxaa ugaarta la doontaa warcaada waa markaan aadayno rabbi inaan wajahno haddaan isxagal gaadayno oo kan uu guuleysanin magacu yeeranaya ka dhowr magaca islaamna oo aan leeyahay ka waaba ku dhibiyay adoo asoo gacantaada ku dhimanin hadintay horta bal inta u banay meeshaan ku banay oo kuwani waa kuwii sidaas ahayo maal hebel saa idin fiiriya haddaad tihiin jamaaca meel ma tegeen ma guuleysanin hal hadaf leediin ma isku jufa ma ahidin isku qabiil ma ahidin reer hebelnimo meeshan ku maydaan imaanin cid ma karta ma jirto reer hebel inta isku tagay wiilashooda akademiyada ma soo dirsan karaan ya magaca ummadda Soomaaliyeed ma xasan sheekna idima keeni kara xataa jidkaas wuxuu ahaa bilkoor karaan dhinac iska fadhiyaan muxuu ahaa safiirka meel cafeteria intaan ku kulanaan shaahi iska caabiyaan iska sheekaysanay no one ana qofna ahayn
dowladda Turkiga inta warqad u qorasaan isaan hana loo yeelo ama saan isaan hana ma dhigi karin laakiin maanta maxaan ku ahay magaca ummadda Soomaaliyeed ku ahay madaxweynaha yimiday inta uu orod ka daba kabashlay soo dhaweey waxay madaxweynaha kale la fadhiisay dhageysta maxaa rabtiin kan waa dhiba kan idin sii karo kan aan siinayna kan aan idin ka rabnaa idinku kan noo yeela nala leeyahay magaca ummadda Soomaaliyeed lagu leeyahay haybadda ummadda Soomaaliyeed lagu leeyahay waxa aad meeshan ku joogtaan magacaas iyo haybadaas waaye maxaa la rabaa inaad sii xoojisaan kor u sii qaadaan la rabaa uma qaadi kartaan haddaa is haysataan uma qaadi kartaan haddaa taliyo unugaaga iyo taliyo kooxdaada iyo maxaan ku taliyo horintaada iyo waxaaga aadan awaamirtiisa yeelin xataa haddii uu taliyahaagu uu kaa khaldan yahay maalintaas waa bini aadan si un ay wax ka noqdaan oo amar khaldan ama wax aan ku sii xataa inaad inta qaadato ka tagto maalin la degan yahay aad u timaado tiraatali aniga shan sidaan ay tiri saan sax ugu ma ahayn xataa waa daw laakiin warna tag wala khalad waxa loo sheegay sidii hadaa tiri hal la xira asigana uu ku yira damage-ka meeshaas ka dhacay weliga waa ku daba jooga qaanuunka waxaa loo sameeyay in lagu kala badbaado inaan la kala uqdadoobin gartu gacmala aanay geed kugu xirtaa Soomaalida ma dhihi jirin asoo xoog loo meel taagana afar odayo waayir sidii jira waa gar daran yahay geedkaas lagu xiray inta tiraado la wada geedka lagu xiray waa baadiyaha markaan joogay yaa inta la wada geed lagu xiray markaas maxaa la jiray reerka u dhaansadana laga gowraca la dhihi jiray asal dhihi jiray asiga soo qabo inta loo diro oo isagu keen inta ku dabar la yiraahdo yaa gowraca la dhihi jiray waa gar daran yahay isaguna inuu gar daran yahay ku qancay waa yeelaya qaanuunkii miyiga markaan joogna saa u dhaqmi jiray magaalada iyo nolosha casriga maanta qaanuunkii ayaa saas nagu ah waa inuu geed nagu xiraahon aqbalnaa xeradaas mugaa soo gashid xeradaas xeeray leedahay military discipline la yiraahdo xerka dhari laf gali weyde ma maqli jirta laf dhari gali weyde dhinacii ciiriin ka tahay haddaad qaanuunkii markii inaad xeradii ciidankiina inaad ahaato oo aad haybadii ciidamada aad haysato nidaamkii ciidankana inaad u hoggaansato aadan rabin laf dhargeli weydo dhinac ciiriinka aad tahay waxaan rabaa dhalinyaro farsamo waa barateen dagaal waa taqaanaan meel kastoo la isugu tago waxaa laydinku ammaanayaa waa dad firfircoon haddaa laydhahay 10 daqiiqo ka hor waa niman firfircoon karti badan aad iyo aad muxuu u dhifoon yani siday u muuqdaan iyo kartidooda aan islahayn hadda hal saac la isoo kiin amaanay waa amaanantiin dhiiranaanta la ku sheegaa niman ajnabi hadda ku waxay yiraahdeen tababarayaal ah oo xamar Soomaaliya joogay ciidamada tababarayna markii maalin intii shaqada dhamaad waa baxay ciidamada waa warsad waxay ii warrama wiilashan aad tababaraysan reer madaxweynaha anaga Afghanistan aan ka soo shaqeynay oo ciidan badan ku soo tababarnay lana soo dagaalanay wili Soomaalida waa tababarnay fieldiga waa la tagnay dagaalan la galnay Afghanistan waxay dhaaraysaa u joogtaa dhinacaad ka weyni waa laga kala carara asag afartii ajnabiga oo meesha ku soo hartad is arkaysa laakiin wiilasha Soomaalida waa kala celin waraa dhaawicina yaraanaya shantan habaxday ama 10 kana aad joog aad kala hara kala fogaada waa kala celinaysaa u dhax waa geesiyaan dagaalka muxuu ay kama cabsadaan waa firfircoon yihiin oo madaalaan dhalinyaro waxaan rabnaa annaga dad muslimiin ahna laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah qof walba oo abdullu dhawaaqo saasu salligu soo boodaya ama wuxuu u dhameystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u sameynaya wax cagsiga oo waxaas oo ku dhawaaqi ka soo horjeedo sameynaya waxaan rabaa warnimo yahow haddii dhiigeenna qaaliga ah qiimaha aan u bixinayno waxa u dhigma inaan helno haddaan rabo
oo sharaf iyo karaamo adduunyo iyo mid aakhiro oo fiican ah aan dhowrsanaano xumaanta aan ka dhowrsanaano dhowrsanaantana aan ka bilaawno disbiliinka aan ka bilaawno wiilashaydii inaad salaada dukataan waxay tilmaamay muslim toosan inaad tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aniga iyo addoonkayga xarigga isu kayn xira waa salaada ninkii salaada gooyo xarigga isu kayn xiraya ayuu gooyey مثلا سوق صلاة الله واحد بدن وكلا سداس صلاة ربي جيدو كذا أو الله كحرنا هذا أو قص في عن قضية في عنا وتاجنت هذا كل مطو أيضا واحد جنال قلت هو رأي كميت هاي لكن كوي كلام نارت قلت جي هبربر دقن تصنعت مسك بالله إلى إذا كسب على جينا ولا شيء ما أنت وحكي ضمنه kuwa badan oo waxaan aad u garanayaa ama aan qiyaasaya xufaad oo quraanka yaqaano diinta yaqaano maxaan ku iraadaa inay idin kamid yihiin intaan oo dhalinyaro oo Soomaali isku timaday inay ku jiraan waa huba qaar diinta yaqaan war kuwa diinta yaqaano kuwa kale walaalihiin la hadla kuwa muxuu ahay fursad aan u helin wax badan oo kamid diinta inay bartaan walaalka yaqaan ka dhigayso cilmi adduunyada ku anfacay aqal adduunyada sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku yeelaya aakhirana muxuu ahay jannadu ku geenaya 10 sano markaan jiray oo dugsiga quraanka dhiganayay oo quraanka dhameeyay ayaa salaada la baray quraankii xifdintiisii wixii aan ku jiray markaan ka baxay markaas la bilaabay safiinatu salaada la baray dhalinyaro iska taqaanaa off and on laakiin xusuusta waxay tahay 15 sano markaan gaaray oo waaqaan gaartay la yiri salaad la'aan ma ahaan wala xan fiicnaan ahayna kama qaadin maal qabeen ma ay daara badan mali wax badan oo layga dhaxloon hadda maanta dhintaan leeyahay ma laha laakiin maalinna irsaaqada ciriiri igama gelin reerka maanta maxay cunayaan wali kama fikirin macallin iskoolan ka soo bilaabay profession ilaa maanta madaxweyne ah maxaa ilmahaagu maanta maxaa siinaysaa ima soo marin wixii xataa duruufo adag dalka ay soo mariyeen ilaahay irsaaqada iguma dhimin laakiin maal qabeen may anna maalka ma badanayn jirin lacag haddaan xoogaa helana meelaha inta dhigtaan ilmahayga wax ku bari jiray ilmo kaloo maxaan ku raadahay qaraaba ama deris ah ama agoon ahaan yaan ku kaalmay jiray haddaan helana maal qabeen maahe hanti badan oo meel ii taallaa ima jirto qoyskayga Istanbul apartment isku malaha Nairobi apartment isku malaha aniga iyo waxaan dhalay iyo xaasaskayga midna adikoo dad yar oo dhaqaalahooda oo aad iyo dakhliga soo galay yaryahay inay apartments meel walba iyo daar uga dhisan yihiin war walaalayaal waxa ugu fiican intaas waay irsaaqada ilaah ballan qaaday si fiican hadaad ku raadisana iyadoo sahlanaad heli wiilasheediyo qofka bini'aadamka waxa uu hadiyad ahaan u bixiyo naftiisa ugu weyn wax nafta ka qaalisan oo la bixiyaay ma jiraan taasaa diyaar la tahay inaad bixiso war waxa kaaga garaafaynayo oo kooskaas iyo qadiyadaas xooga badanne iyo naftii horanimadaas xooga badanne waxa kaa ciladaynaya yarkaa ka imo salaada waa waana dukada waxaan idinka rabaa khayr badan allah idin siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan idiin imaado tababarka aad soo gasheen aan arkayna waa ku faraxsanahay tababar aad iyo aad u sarreeyo macno leh hanti badan ay ku baxday effort badan iyo dhidid badan uu ku baxay waaye inaad ka mira dhalisaanaan rabnaa waa idinku faanaynaa markaad soo noqotaan dalka timaadaan dhowaan haddii alla yiraa xaggana waa ku kulmi doona waa idinla joognaa frontigaan idinla joogaa ilaahay idankiis ha noolaato Soomaaliya Yeah,
guulaysta adikana maasha allah qayr iyo guula idin rajaynaya haddii aan la yidhaha waxaa noo ballana goobaha dagaalka iyo dalkii inaan ka xoreyno cadowga haddii aan la yidhaha halhayskiina halhays fiican waaye waana ka dhabaynaynaa guusha annagaa leh aadaa u mahadsantiin